بسم الله الرحمن الرحيم كسر دواد وررك عالم كودين كجا إيمانية تلفزيون كعالمي الصومالي channel حرمتي سدحة مجلة لندن وحنا وررك دين لسه عدسين أياني جوا عبد الله حسين ماريا وررك عن دين هنا نوح وجود دوران قلها وزير حكومة دكوميل جاركا وجبيهان بيذكر عين طلابة عد لقى قاضي شخصيات دوان هكذا جليه حوله دكتور دوين مجلة مقدشة يا مدحوينها دولة دكوميل جاركا صوماليا أو شيء in uu soo gabagaboobay wajigii koobaad ee xoojinta ciidamada xooga dalka Soomaaliya iyo waliba magaalada Boorame wax garadka iyo uqaasha iyo ganacsatada gobolka Awdal oo bilaabay olole ay dib ugu hagaajinayaan ama dib loogu dhisayo burbur ku yimid kadib xabaalihii hore ee ku yaal seeraha magaalada Boorame oo ay roobab iyo daadadii waxyeelayeen wararka caalamka ee idin haynana waxa ugu dooran ururka jaamacadda carabta wasiiradooda arrimaha dibadda oo gaashaanka u daruuray in aysan marnaba aqbali doonin dagna jalaq u siin doonin gacan adayga uu Mareykanku ka gacan adaygay amaba diiday in uu tallaabo sharci ah ka qaado wadanka Israa'iil oo sii wada wali dhismayaasha sharci darrada ay ka wadaan wadanka Falastiin 22 qof oo iyaguna ku qudwaayay diyaarad kula burburtay dhulka buuraleyda ah ee bariga wadanka Nepal intaasi waa warkii kooban haatana isagiyo fidsan golaha wasiirada xukuumadda ku meel gaarka ayaa isku raacay in tallaabo cad laga qaado shakhsiyaad dhawaan hakad geliyay hawlihii dekada weyn ee magaalada Muqdisho warkan waxaa nooga soo diray magaalada Muqdisho wariyahayaga Nimca Maxamed Basheer golaha wasiirada xukuumadda ku meel gaarka ee Soomaaliya ayaa kulan ay maanta Muqdisho ku yeesheen oo uu shir gudoominayay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo oo maanta dib ugu soo laabtay magaalada Muqdisho waxa ay uga hadleen khilaafaad maalmahanba ka taagnaa dekada weyn ee magaalada Muqdisho waxaana golaha wasiirada iyo ra'iisul wasaaruhu ay isku afkarteen in sharciga la hor keeno shakhsiyaad ay sheegeen in si qaldan ay hakad u galiyeen saacado kooban hawlihii shaqo ee dekada weyn ee magaalada Muqdisho sida uu saxaafadda uga warbixiyay afayeenka xukuumadda ku meel gaarka ee Soomaaliya Cabdi Xaaji Goobdoon shir maanta golaha wasiirada isugu yimid oo gudoominaya ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo waxaa looga hadlay falkii ka dhacay dekada maalintii dhaweed ee dekada Muqdisho golahu aad iyo aad ayuu u cambaaray arintaasi falkaasi waxaana golaha uu gaaray in arintaasi sharciga qaranka la marsiiyo oo sida uu sharcigu qabo lagu qaado falkaasi cidii ka dambeysay ee dekada lagu la kacay ra'iisul wasaaraha ayaa dhanka kale ka warbixiyay kulan mas'uuliyiin ka socotay qaramada midoobay iyo safiiro uu kula qaatay magaalada Nairobi waxaana uu sheegay in guud ahaanba mas'uuliyiintaasi ka socotay qaramada midoobay uu kala hadlay sidii ay u taageeri lahaayeen xukuumaddan cusub ee Soomaaliya isagoo dhanka kalena sheegay in ay guud ahaanba u ballan qaadeen mas'uuliyiintaasi sidii ay u taageeri lahaayeen dawladda ku meel gaarka ee Soomaaliya iyo sidii loo siin lahaa xukuumaddan cusub saaniyad military oo ay kula dagaalanto kooxaha mucaaradka ee ka soo horjeeda dawladda ku meel gaarka ee Soomaaliya sida mar kale saxaafadda uu u sheegay afayeenka xukuumadda Soomaaliya Cabdi Xaaji Goobdoon dalka Kenya intii uu marayay ra'iisul wasaare Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo waxa uu la kulmay oo wada hadal la yeeshay ergooyin ka socday beesha caalamka gaar ahaan ururka qaramada midoobay ururka midowga Afrika mas'uuliin ka tirsan iyo danjirayaasha dalalka kaleeto ee adduunka oo ugu horeeyaan safiirka dalka Mareykanka Talyaaniga iyo kuwa kale waxaana loo wada hadlay sidii Soomaaliya loo dejin lahaa amnigeeda iyo gacan loo geysan lahaa nabadgelyadeeda isla markaana horumarinta dhaqaalaha iyo bulshada door looga qaadan lahaa ra'iisul wasaare Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo garoonka diyaaradaha waxa ku soo dhaweeyay madax ka tirsan dawladda iyo xafiiska ra'iisul wasaaraha maaha markii ugu horeysay ee beesha caalamka iyo wadamada dariska la Soomaaliya ay u ballan qaadaan dawladda ku meel gaarka ee Soomaaliya inay u soo dirayaan saanad military iyo waliba inay u tababarayaan ciidamada dawladda ku meel gaarka ee Soomaaliya si markaasi ay meesha uga saaraan kooxaha mucaaradka oo inta badan qalqal ku haya ama qalqal galiyay dawladda ku meel gaarka ee Soomaaliya Nimca Maxamed Basheer Soomaali Channel Muqdisho
guddoonka sare ee baarlamanka ayaa ku baaqay in dhammaan ummadda Soomaaliyeed ay u istaagaan sidii wax looga qaban lahaa dagaalada ba'an ee ka holcaya gebi ahaanba Soomaaliya. warkana waxaa soo diray wariyahayaga kale ee magaalada Muqdisho Cabdulqaadir Cali Xuseen Koronto. waxaa isa soo tarayo baaqyada kala duwan oo ay madaxda dawladda ku meel gaarka u soo jeedinayaan qeybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed oo ku wajahan inay ka qayb qaataan nabad ku soo dabaalida wadanka Soomaaliya. kusimaha gudoomiyaha ahna gudoomiye ku xigeenka koowaad ee golaha baarlamanka dawladda ku meel gaarka Soomaaliya Cabdiweli Ibraahim Sheekh Muudey oo maanta hadal ka jeedinayay kulan ay isugu yimaadeen ururada bulshada rayidka ayaa waxa uu ka hadlay marxaladda cakiran ee dalka Soomaaliya. kusimaha gudoomiyaha ayaa waxa uu ugu baaqay dhammaan ummadda Soomaaliyeed inay si wada jir ah uga qayb qaataan ayna u istaagaan xal u helidda marxaladda cakiran ee wadanka Soomaaliya iyo nabad ku soo dabaalida dalka Soomaaliya. waxaan rabaa inaan ku daro hal kelimo oo ah nin walba uu ka dheregsan yahay maanta hadal badan ma aanan imaanin arrintaas oo ah waa garanaysaa maanta Soomaaliya xaaladda ku sugan meesha aan marayn iyo mashaakilkii dhibaatada haysata maadaama halkan la isugu timaadeen aragtiyo kala duwan aad rabtaan inaad ka sheegtaan in xoogga la saaro sidii looga shaqayn lahaa rag iyo haween carruur iyo ciroole mashaakilkii iyo dhibaatada waddanka haysata sidii looga bixi lahaa in ay ahaato in aad xoogga saartaan aragtidiina aad ku muujisaan maanta wax kale oo in laga hadla mudan ma jiraan sidee xal loogu gaari karaa mashaakilka waddanka ka jira sidaas loo xallin karaa yaana xallin kara waxaan filayaa dadkii ku habboon inaad tihiin dadka meesha fadhiya la rabaa inay wax ka qabtaan. sidoo kale kulanka ayaa waxaa hadallo koobani ka jeediyey mas-uuliyiin kala duwan oo dhammaantoodba ka hadlay xaaladda dalka. welina ma jiraan wax guulo la taaban karo ah oo markaasi ka soo baxay kulamo dhowr ah oo bilihii ugu dambeeyay magaalada Muqdisho ka dhacayay kuwa oo laga hadlayay nabad ku soo dabaalida dalka. Cabdulqaadir Cali Xuseen Koronto, Somali Channel, Muqdisho. madaxweynaha dawladda ku meel gaarka ah ayaa sheegay in uu soo gabagaboobay wajigii koobaad ee xoojinta amaba dib u dhiska ciidamada xoogga dalka Soomaaliya. warkana waxaa soo diray wariyahayaga Nimca Maxamed Bashiir. madaxweynaha dawladda ku meel gaarka ah ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo muddo 4 maalmood ku sugnaa saldhigga guud ee looga armiyo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo dhawaan laga furay xarunta Villa Baydhabo oo horey ay u deganaayeen ciidamada dawladda ku meel gaarka ah ee Soomaaliya ayaa maanta kormeer ku maray guud ahaan fariisimaha ciidamadu ay ku leeyihiin agagaarka xarunta Villa Baydhabo ee magaalada Muqdisho. madaxweynaha oo kormeerkiisa uu ku weheliyay abaanduulaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa waxaa hareeraha ka socday qaar ka mid ah ciidamada midowga Afrika ee Muqdisho jooga iyo kuwa xoogga dalka Soomaaliyeed. madaxweynaha ayaa markii uu kormeerkiisa soo dhameystay waxa uu la hadlay saxaafadda waxaana uu sheegay in ujeedada kormeerkiisu ay tahay dardargelinta iyo dhiirigelinta ciidanka qalabka sida si looga gudbo xaaladaha haatan jira isagoo hoosta ka xariiqay in ay dhameystireen wajigii koobaad ee ujeedadii uu u deganaa xarunta Villa Baydhabo. ujeedaduna waxay ahayd in la dardargeliyo howlaha ciidanka gaar ahaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed marka hore in la helo xog dhab ah xaaladda ciidanka ku saabsan kadibna in la galo sida ugu wanaagsan ee loo abaabuli karo ciidanka. falillahi alxamdu wajiga koowaad oo ku guuleysanay saraakiisha ciidanka dhammaantood qaybooda kala duwan la kulannay waxayna nasiixiyeen warbixin faahfaahsan iyo sida ay diyaarka ugu yihiin inay difaacaan dadkooda cadowgana uga saaraan dalka. hawshaasuna waxay u dhacday sidii ugu fiicneed. waxaan u gudbi doonaa insha Allah tabaaraka wa tacaala fayska labaad oo ah in isku duwaridka iyo mataqaanaa hawsha ciidanku inay noqoto mid
ka taya badan intii hore in la guda galo. Shariif Sheekh Axmed madaxweynaha dowladda ku meel gaarka ee Soomaaliya ayaa mar wax laga weydiiyay aragtidiisa ku aadan khilaafka ururada Xisbul Islaam iyo Al-Shabaab oo maalmahan warbaahintu ay hadal hayeen. Waxa uu sheegay in ay tahay wax aan habooneen in xilligan ururo ay ku dhex dagaalamaan shacabka Soomaaliyeed, isagoo intaasi ku daray in xilligan shacabku ay u baahan yihiin dowlad wax ka qabato xaaladaha cakiran ee haatan dalku uu marayo. Arrinta ku saabsan Xisbul Islaam iyo Shabaab waxa garan kartiin manhajka ma taqaanaa marka inxiraaf uu ku dhaco dadku ay rumaysan yihiin mar walba waxa yimaada waxyaabahan oo kale. Marka waa nasiib darro runtii in maalin walba ay timaado yani guruubo isdilaya. Marka waxaan leenahay taas waxay muujinaysaa inxiraafka oo manhajka ay rumaysan yihiin ayagoo wada jira shacabka Soomaaliyeed ay gaalaysiiyaan dhiigooda ay banaystaan waxay u diideen in horumar la sameeyo. Marka waxaan rajaynayaa in la soo gaaro xilligii ay ku gara lahaayeen xaqa, xilligii ay uga lahaayeen ummadda Soomaaliyeed kulligeedna inay muslim tahay una baahan tahay dowladnimo iyo nabad aysan u baahnayn dagaal. Kormeerkan madaxweynaha dowladda ku meel gaarka ee Soomaaliya uu ku tagay qaar ka mid ah fariisimaha ciidamada dowladda ku meel gaarka ee Soomaaliya ayaa imaanaya xilli maalmahanba saraakiisha ciidamada dowladda ku meel gaarka ee Soomaaliya iyo ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya ay wadeen abaabul ciidan, taasi oo aan la garanaynin ujeedada abaabulkaasi waxa ay tahay, iyadoo dhanka kalena imaanaysa booqashadiisu xilli maalmihii ugu dambeeyay qayb ka mid ah gudaha magaalada Muqdisho ay ka socdeen dagaallo u dhaxeeya ururada ka soo horjeeda dowladda iyo joogitaanka ciidamada shisheeye gudaha magaalada Muqdisho iyo kuwa dowladda ku meel gaarka ee Soomaaliya. Nimco Maxamed Bashiir, Somali Channel, Muqdisho. magaalada Boorama ee gobolka Awdal ganacsatada iyo culumaa diinta gobolkaas ayaa howlo dayactir ka bilaabay xabaalihii hore ee seeraha Boorama kaasoo ay ku yimaadeen burbur aad u xooggan kadib markii roobab iyo daadadii ay burburiyeen. Cabdifitaax Axmed oo wariyaha Somali Channel ee gobolada Awdal iyo Salal ayaa warkan nooga soo diray magaalada Boorama. dhowaan ayay ahayd markii ay soo ifbaxeen in xabaalihii hore ee sayraha ee magaalada Boorama uu daad dumiyay islamarkaasina ay gurmad u galeen culimo ka tirsan magaalada Boorama. waxaase iminka howshii si gaar ah isugu xilsaaray wax u qabashada meydadka xabaalaha ku jira oo banaanka qaarkood u soo baxeen siday godadkii ugu celin lahaayeen islamarkaana ay deyr ugu sameyn lahaayeen ka badbaadiya biyaha iyo wax kasta oo wax u dhimi karaya xabaalahaasi. ganacsatada iyo culumaa magaalada Boorama waxaa howshan sida ay u socoto Somali Channel ugu warbixiyay Saleebaan Xasan Xadi oo ah isku duwaha wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta reer miyiga ee gobolka Awdal. bismillaahir rahmaanir rahiim. waxaan halkan maanta warbixin ugu jeedinayaa dadweynaha Soomaaliland gaar ahaan degmada Boorama meesha doonada ha joogaan in hawsha maanta ay culimadu iyo ganacsatada degmadu u kaceen in gacan lixaad laga geysto khayr Allah siiye. hawshan waxay ahayd biyihii oo ku soo leexday xabaalihii oo dhammaantood burburiyay sida maanta hore ku arkayseen. waxaad moodaa dadku inta nool inay u damqadaan laakiin dadka dhintay ayna u damqan. laakiin maanta Ilaahay wuxuu ka u garasiiyay dadkii waxa uu kacay ganacsatadii gobolka, baayac mushtarkii, culimadii. marka arrintii waxay noqotay arrin loo gudsaday in cagafta arkaysaan wax laga leexinayo biyihii qaybtii soo jeedisay. waxana lagu tala jiray haddii Ilaahay yiraahdo in dhagax lagu soo wareejiyo khayr Allah siiyo looma kala hadhin maanta. halkan imika arkaysaan xafiiska wasaaradda xanaanada xoolaha iyo dhirta iyo daaqa ayaa ku yaala ee la oran jiray forestry. beertan imika markaanu dhex marino cagafta waxay noqon doontaa inaan ka wasaaradahaan annaguna wixii gacan aan ka geysano. waxaana ballan qaadaynaa halkaa imika la baneeyay si ayna biyuhu u sii dhibaataynin inaanu dhereer ku samayno. qaadhaankan hadda lagu duwayo biyahana waanu ka qayb qaadanay. ganacsatadana aad baan ugu mahadnaqayaa iyo culimo diinka gobolka oo runtii xil weyn iska saaray una gudsaday hawshoodiina dhulka u dhigay ilaa hawsha ayna ku soo banaanaatay qabyada ay dayactiraan. xabaalaha bariga iyo galbeedka kaga yaala magaalada Boorama ee caasimada gobolka Awdal oo markasta dhibaato ka soo gaadha waqtiyada roobabka daadad ku soo rogmada ayaa sanadkii hore culumaa diinka waxgaradka iyo odayaasha magaalada Boorama waxay iska xil saareen sidii ay deyr ugu sameyn lahaayeen qaar ka mid ah xabaalahaasi. Cabdifitaax Axmed, Somali Channel, magaalada Boorama.
sidoo kale waxaa magaalada Boorama maanta ka dhacay shir looga hadlayay sidii lacag deyna loo siin lahaa dadka danyarta ah ee ku sugan magaaladaas waxaana warkan soo diray Cabdifataax Ahmed madal lacag deyn ah loogu qaybinayay qoysas danyar ah ayaa lagu qabtay xafiiska ururka wadaniga ah ee Sahura ee magaalada Boorama madashani waxaa lacag deyn ah loogu qaybiyay 200 oo qof oo danyar ah waxaana ka qayb galay gudoomiye ku-xigeenka golaha deegaanka ee degmada Boorama Muumin Gadiid Cumar xogayaha dawladda hoose ee magaalada Boorama injineer Cabdinaasir Maxamuud Qowrax maamulka ururkaasi iyo haween tiro badan oo kamid ah qoysaska danyarta ee ku dhaqan magaalada Boorama ugu horeen waxa madashan ka hadlay madaxa mashaariicda ee ururka Sahura Cabduqaadir Cali Bade wuxuuna sheegay in dhammaan degmooyinka ay ka kooban yihiin gobolada Awdal iyo Salal ay lacag deyman ah ka qaybiyeen taasoo lagu kobcinayo qoysaska danyarta ah ee noloshooda hooseyso waxaan garanaysaa hay'adda halka qaranimada ku taalo US Department of State Police Federal Award waxaana fulinaysaa hay'adda kale ee Somali Military Station Sahura Somali Marketing ku sharaxno waxa weeye hay'adda Mareykanka ee deeqaha sidoo kale waxaa madashan ka hadlay xogayaha dawladda hoose injineer Cabdinaasir Maxamuud Qowrax wuxuuna ugu mahadceliyay ururka wadaniga ah ee Sahura sida fiican oo ay u gacan qabteen qoysaska danyarta ah ee ku nool magaalada Boorama wuxuuna ugu baaqay inay sii kordhiyaan dadaalkooda dhinaca horumar bay noo tahay oo bulshada aanu rabnayna anaguna u dadaalo oo aan mas'uuliyadda naga saaray aad baan ugu faraxsanahay dhaqaalahan inii soo kobcaya waxaan ugu dardaarayaa inaad heshiisyada la inala galayo aan anaguna dusha ka ilaalinayno oo heshiiskaas sidiisa uga soo baxdaan marka lacag la inii dhiibo dadka waxan ad soo celisaan way inii kordhi doontaa insha allah waa in badan socotana oo ku tala jirnaan ku rajeynaynaa wixii kala dawlad ahaan anaguna la qaban karayno ururkana diyaar baanu nahay waan la qabanaynaa inaguna heshiiska aad la gashaan ururkayna waxay nagu boorinayaa dhinaciina si fiican uga soo baxdaan laga soo bilaabo 93kii waxaa Somaliland ka jira ururo badan oo mashruucyo noocan oo kala ah dalka keenay kuwaasoo markii dambe ku fashilmay si wadista hawshan taasoo loo aaneynayo inay iyagu iskood ugu taklifaleen mashruucyada lacagaha deymanka ah loogu qaybinayay dadka danyarta ah ee ku nool Somaliland balse ururkan Sahura oo muddo sanad ah mashruucan wadaya wuxuu u muuqdaa mid hawshan fulinteeda ka soo bixi karaya Cabdifataax Ahmed Somali Channel magaalada Boorama dawladda hoose ee magaalada Burco ayaa maanta ka fulisay suuqa Labaqow ee magaaladaas hawlaha ay ku duminayso kuna burburinayso guryaha sida sharci darrada ah looga dhisay wadooyinka geesahooda warkana waxaa soo diray Maxamed Cawad Maxamed dawladda hoose ee degmada Burco ayaa bilowday howlgallo ay ku fulinayso qaar ka tirsan suuqyada kala duwan ee magaalada Burco kuwaas oo lagu duminayo guryaha sida sharci darrada looga dhisay wadooyinka dhinacyadooda howlgalkan ay dawladda hoose ay maanta ka fulisay suuqa Labaqow ee magaalada Burco ayaa waxay halkaasi ku dumisay in ka badan 50 sandaaqadood oo si sharci darrada looga dhisay wadooyinka dhinacyadooda howlgalkan ay dawladda hoose wada ay ku tilmaameen inuu yahay mid lagu soo celinayo muuqaalkii iyo quruxdii ay lahaan jirtay magaalada Burco geesta kale dadweynihii laga dumiyay goobahooda ganacsiga ayaa iyaguna tilmaamay inay ku faraxsan yihiin hawshan ay bilowday dawladda hoose oo ah mid kor u qaadi doona hanaankii iyo muuqaalkii guud ee magaalada Burco waxaanay tilmaameen inaanay marnaba ka soo horjeesan doonin hawlaha qaranka ee noocan oo kale waa kuwan qaar ka tirsan dadweynaha oo cabiraya dareenkooda ku aadan hawsha ay xilligan dawladda hoose ka wado suuqa Labaqow Sayid Cilmi Nuur waxaana qoliyaha laga dumiyay maanta meeshii loo dhajay gol ceebeed ee dawladdu ku soo qaaday maxay haytay safeenka raali baanu ka nahay dawladda waan ku taageersanahay waxaan ka qabnaa si wanaagsan weeye waan ku sabarsanay waan ku raacsanahay waayo meel kasta oo daaraha sharciga marka hore u dhisnaa laga soo hor dhisay oo ka soo horeysa waxa weeye waa hoy argixisay weeye ama tan noqota ama kuwan xagga Labaqow uga sii badan ma noqotay daar kale daar horteeda wax ka tagnaan karaya jirna sharci jira ama laga kaco in dawladdu ay baabiiso meesha magaceeda wax loo jiray gol ceebeedna macnaheedu waa la garan karaa waxay tahay haddana meelaha sii muuqda oo mukulaalaha iyo ay ka sii muuqdaan iyo midka samrila waa in la sii tuuro goobaha kale ee degmada gudaheeda ee la midkaana
waxaan dawladda ka rajaynaynaa inay sidoo kale ka yeesho suuqa laba qow ee magaalada Burco ayaa isagu waxa uu yahay mid sifa sharci darro ay dad badan uga dhisteen wadooyinka dhinacyadooda sandaqada aan loo ogoleen taasoo ay dawladda hoose hore ogeysiis u siisay balse ay ka dhagaadeegeen ugu dambeyntii dawladda hoose ee degmada Burco ayaa muuqatay dhowrkii bilood oo ugu dambeeyayba mid kor u qaadaysa hanaanka iyo dhismayaasha kala duwan ee ka fulinaysa magaalada Burco iyadoo kor u qaaday nadaafadda iyo bilicda guud ee magaalada Maxamed Caawad Maxamed telefishinka caalamiga ee Somali Channel TV Burco dowlad goboleedka Puntland magaalo madaxdeeda Garowe ayaa shalay si rasmi ah waxa uga bilowday ciyaarihii gobolada oo aan muddo ku dhawaad 20 sano la qaban shalay markii ay ciyaareen kooxda Nugaal iyo Shabeellada Hoose ay Nugaal hal iyo eber ku badisay ayaa ciyaaruhu waxa ay galeen maanta wajigoodii labaad waxaana maanta wada ciyaaray labada kooxood ee kala ah Banaadir iyo Mudug oo isku mari waayay hal iyo hal iyo gobolka Sool iyo Gedo oo iyaguna 3-3 isla dhaaf waayay wali waxaanu dhaxda kaga jirnaa wararkii gobolada dhexe ee maamul goboleedka Galmudug iyo Ximin iyo Xeeb madaxweynayaashooda ayaa kulan ku qaatay magaalada Cadaado taasoo ay uga wada hadleen dagaaladii baanaa ee dhawaan ku dhexmaray labada beelood ee walaalaha ah ee ka jiray gobolka Mudug waxay kaloo labada madaxweyne isla soo qaadeen waa maamul goboleedyada Ximin iyo Xeeb iyo Galmudug sidii loo nabadeyn lahaa gabi ahaanba dhulka ay maamuladoodu ka taliyaan wararka caalamka ururka jaamacadda Carabta wasiiradooda arrimaha dibadda oo kulan yeeshay ayaa gaashaanka u daruuray inaysan marnaba aqbali doonin sida ay isaga dhaga tirayso dawladda Mareykanku dhismayaasha sharci darrada ah ee dawladda Israel ay ka wado dhulka reer Falastiin wasiirka arrimaha dibadda ee wadanka Qatar isla markaana ra'iisul wasaaraha wadanka Qatar ayaa isagoo u hadlaya ururka jaamacadda Carabta waxa uu sheegay in loo baahan yahay in dawladda Mareykanku ay fuliso go'aamadii qaramada midoobay iyadoo beesha caalamku ay u aragto in ay xaq darro tahay dhismayaasha sharci darrada ee Israel ay ka wada gabi ahaanba dhulka reer Falastiin wasiirka arrimaha dibadda ee Qatar ayaa sheegay in ay mar dhow aadi doonaan ururka qaramada midoobay xaruntiisa dhexe ee magaalada New York halkaas oo ay ka baqayaan sida caadada oo ay dawladda Mareykanku ay adeegsato awoodeeda qayaxan ee veto power waa maralaale iyo markii dawladda Israel qaraar kamida la soo qaaday halka aad warkaas ka daawanaysaan waa telefishinka caalamiga ah ee Somali Channel xaruntiisa dhexe ee magaalada London wadanka Nepal ee ku yaala bariga fog ee buuraleyda Himalayas ayaa 22 qof ku qudwaayeen kadib markii diyaarad yar oo rakaab ah ay ku dul burburtay bariga buuraleyda Himalayas ee Nepal shalay ayay ahayd markii ay diyaaradaasi wax isgaarsiin amaba xiriir la yeelan weyday xarunta dhexe ee magaalada Kathmandu oo ah halkii laga hagayay diyaaradda sarkaal sare oo hadlay ciidamada bilayska wadanka ayaa sheegay in 300 oo kiiloomitir oo isku weer ah laga helay burburkii diyaaraddaas ilaa iyo haddana wax nool oo dadkii rakaabka ahaa oo ka koobnaa 19 qof rakaab ah iyo 3 shaqaalihii ka shaqeynayay inaan midnaba la helin tan iyo intaynu dib ugu kulmi doono warkan iyo mid la midana waxaan idinkaga tagayaa anigoo Cabdullaahi Xuseen Mariya assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh